الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مامورك waxbarashada macallimiinta shirkadaha dayaxjad waalidka ardayda macallimiinta iyo maamulka hay'adda wadaniga iyo fanko warbaahinta dhammaantood waxaan ugu salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. runtii farxad weyn bay noo tahay inaan nagala soo qayb galno 186 arday oo maanta dhammaysanaya xirfadaha kala duwan dawaarka kombiyuutarka xinaha maxay ahaydey leerka xirfadahaas runtii ah xirfadaha halbowlo ah arrimaha shaqada. ugu horreyn waan hambaleynayaa ardayda, waan hambaleynayaa hablaha aqoonyahanka, waan hambaleynayaa waxaan leeyahay aqoonta aad barateen ku hambaliyo. runtii qof kasta wax bartaaba qof kasta naftiisa wuxuu taray markaad aragna arday wax ka soo baxay xirfad waxbarasho inta farxad bay noo tahay. ugu hore waan ugu hambaleynayaa dadaasheen hay'adda iyo fakana gacan qabatay oo inii diyaarisay agabkii iyo goobtii shaqada wax ku baran lahaydeen. maanta diyaar u tihiin suuqa gashaan kullu hadal dadaara macallimiinta iyo mas'uuliyiinta ma dhameeyay. aniga waxaan ku darayaa kullu barashada xirfadu qof waxay geysaa meel aan iminka joogin, waxay geysaa suuqa shaqada, waxay geysaa goob shaqo, waxay geysaa oo ay ku xidhan cid kale oo aqoonta leh. marka ardaydu inay wax bartaan oo xirfad ay bartaan waxay la macno tahay inay shaqo ay diyaar u yihiin inay shaqaystaan. runtii marka laga hadlayo barashada xirfaduhuna adduunku maanta wuxuu u tartamayaa ama u jeestay in qof kasta uu xirfad yeesho. qofka maanta aan xirfad lahayni waa qofka bilaa camalka ah, waa qofka bilaa shaqada ah. haddaad aragto qof maanta bilaa shaqo ah macnaheedu waxa qofkaas xirfad ma leh. hadda maanta aragtaan qofkaas uu shaqeeyaa markay ugu yarto xirfad aqoon wuxuu leeyahay waayo aragnimo, xirfad shaqo leeyahay, xirfad bulsho leeyahay, xirfad qoraal buu leeyahay, mid kombiyuutar buu leeyahay. runtii maanta inaad markaa idinku maanta isku jirtaan kombiyuutarkii barateen, maamulkii barateen, leerkii barateen, xinihii barateen, administrationkii barateen, waa guul gobolka iyo degmada soo hoyatay. marka waxaan leeyahay halka aad gaadhay maanta horta ilaahay nala qabto. waxaan sugayay culaysyo kale aan sugayay suuqii shaqada ah. runtii gobolkana waxa waa gobolkii dhaqaalaha, waa gobolkii warshadaha, waa gobolkii shirkadaha, waa hooyadii Soomaaliland. waxaas oo dhan waynu ognahay. haddana anagoo og waxaas oo dhan aynu ognahay haddana qof kastaaba siduu u dadaalo iyo siduu wax u raadsado iyo siduu aqoontiisa u dhiso ayuu wax ku helayaa. haddaad aqoon kasta leedahay oo aanad is iibgeyn, oo aanad si fiican qoran, oo aanad kombiyuutarka aqoon kasta haddaad leedahay gurigaaga maad joogaysaa. qofku waa in suuqa u soo baxaa, wixii magaalada ku cusub ka war hayaa, shirkadaha magaalada yimaada ka war hayaa, tartanka galaa, goob kastoo shaqa ka banaanaato uu codsigiisa iyo sifiisa geysan karayo. laakiin haddaad gurigiina iska fadhidaan oo ama xildhibaan istiraaha ku geeyo ama mas-uul kule waa waqti badan bay kaa qaadaas. qofku markuu xirfad barto cidna ma baahna, kalsooni buu helaya. kalsoonidu waxay geynaysaa goobaha shaqada. marka xirfad baratid cidna ma baahni. markaa runtii waan ku farxaynaa inaad barataan xirfadan. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inta badan shaqo carbinta ka shaqaysaa, inta badan hay'adda iyo fankoon kala shaqaynaa. iminka diyaar u nahay inaan kala shaqeyno ardayda maanta wax baratay goobaha shaqada inaan la geyno. maadaama berbera ay ku yaalaan warshadihii iyo shirkadaha gobolka jooga degmada waxaan ku baaqaynaa mar walba inay ardayda u furaan shaqo carbin oo cid kastaaba siyaasadooda shaqada ku darsadaan, inay fursad siiyaan aqoonyahan kala duwan ee gobolka degmada soo baxaya oo ay siyaasadda ku darsadaan. annagoo waan kala shaqayn doonaa. sidoo kale waxaan ku baaqayaa intaas oo warshadood baa jira oo maanta gobolka laga furayo degmadabay. runtii iyakan waxaan ku baaqaynaa aan jecel lahay in wixii ay shaqooyin hayaan si cadaalad u soo bandhigaan. xeerka shaqaalaha reedka qodobka 4 wuxuu mar walba wuxuu ka hadlayaa in fursad kasta oo banaanaata lala wadaago ardayda iyo aqoonyahan. laakiin dadkeena waan ognahay markay warshad furayaan ama meel kale ay furayaan hoostaas wax ka qoranayaan. runtii waxaan ku dadaali doonaa inaan shirkadaha kala shaqeyno dadka u soo bandhigaan fursadaha. fursad kastoo la soo bandhigo dadka aqoonta la soo baxaya. xitaa ardaygu wuxuu ku dhiiranayaa
wuxuu maanta garan waa inuu bariis ka soo dhiso marka insha Allah waxaan ugu dhiirigelinayaa inaad aqoontiida kor u sii wadaan oo ayna hal xirfad ku joojin laba ku joojin saddex ku joojin ilaa 4 xirfadood ilaa 5 xirfadood inagoo suuqa shaqada waxa weeyaan waafajinaya xirfaduhu waxay ku fiican yihiin in suuqa shaqada la waafajiyo berbera marka la joogo waxa base u ah arrimaha farsamada gacanta haday computerka noqoto haday leerka noqoto iyadoo ay ku xiran tahay mar walba in luqadda ingiriisiga iyo carabiga waxyaalaha base-ka u ah magaalada ay imanayaan maalgashada fara badan oo imada intaas oo shirkado maalgashi waxay u baahan yihiin isfahmayaan marka taa in xooga saaro oo wixii ka dhimaada xooga saartaan waa taladan ku darayno shirkadaha waaweyn insha Allah waxaan kala tashan doonaa oo wali u soo jeedina in shaqo kasto badaata dadka magaalada wax ku bartay ee waqtiga badan geliyay ee dhididka iyo kuleelka u samray inay fursadaas siiyaan way jiraan shirkadaha Hargeysa iyo gobolada kale ka keena laakiin waajibka kooda waxa iska leh arka shirkadaas ku asaasan tahay in laga fuul yeelo waxyaalaha laga waayo deegaankaana gobolada kale laga soo qaato marka shirkadaha insha Allah ugu baaqayna oo ku dabagaleynaa idinka waxaan ugu dardaarmayaa inaad aqoontiina si wadataan in xirfadaha barashadooda amarna laga niyadjabin in meeshaas la gaab baa ka haysta ay iska buuxisaan oo ognahay qof kasta 100% ma qof kasta weakness buu leeyahay qof kasta meel uu ku fiican yahay in la isku balance gareeyo intaba waxaad ku fiican tahay iyo waxaad ku waxa weeyaan ku hooseysidba taas waxay kor u qaadaysaa inaad suuq fiican heshaan sidoo kale dadka aqoonta leh ee isleedihiin waxbay ku tarayaana xiriir fiican la sameeya qof aad la saaxiibaysaa ha noqdo qof xirfadaada ka caawinaya qof xog ka siinaya qof suuqa ku gelin karaya runtii waan ognahay shaqo la'aantu way baahsan tahay ilaahay waxa ka barayna inuu wadankeena wax maadaama maanta barantay meesha lagu faanayo in noqoto meel waxa weeye shaqo abuurka ka noqota warshado badan baa imanaya iminka qaar baa la furi doonaa insha Allah qof kastaaba CV-giisa ha barto sida loo qorto ha geysto wixii riixtaan u baahan wasaaradda iyo hay'adda iyo fogeynta badan internship ka shaqeynaa diyaar baan u nahay inaan la shaqeyno inaan la qaracno albaab kaste inaan taageerno waana diyaar baan u nahay kulwa waqti iska kooban waxaan leeyahay hambaliyo idinkii waalidkiinba iyo macallimiinta iyo maamulkiina iyo fogeyn insha Allah runtii gobolka maanta dadkay soo saartay haday dhiib wal noqoto haday warshada noqotaba iyaga uu adeegaya insha Allah idinku waxaad noqon doontaan adeegayaasha bulshada waxaad noqon doontaan farsamayaqaanka gobolka waxaas oo dhan ka shaqeyn doontaan laakiin iskuulkiina hay laabinade inaad ilowdaan marna isku dayina meesha wax ka barateen waxa weeyaan inaad niyada ku haysaan waa dadka ku soo riixdaan halka wax ka barta waa la shaqeysaan marka qof kasta meesha wax ka bartay oo taariikh ka tagaa oo taariikh ku darsadaa oo dadka soo tilmaamay halka la tago marka dadkeena inta wacyi gelinta barashada xirfaduhu ku yar tahay intii nasiib ku yartay waxa leeyahay maanta aynu jeesano inaan xirfad barano aad iyo aad baa u mahadsantiin ambali dhamaantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi